madaxweynihii hore ee dowladii ku-meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si diiran waxa loogu soo dhaweeyay magaalada tan London kadib markii uu dhawaan socdaal ku soo gaaray madaxweynihii hore ee dowladii ku-meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Heathrow ee magaalada tan London dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid magaalooyinka kala duwan ee wadankan Britain kuwaasi oo si aad ah ula dhacsanaa siyaasadda Sheekh Shariif Sheekh Axmed xilligii uu maamulayay dalka waxa faafahinta warkaasi noo haya wariyaheena Maxamed Cabdi Cali Daacad madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ee dalka Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa ka soo degay gigida diyaaradaha Heathrow Airport ee magaalada London madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa kaga hortagay garoonka diyaaradaha ee magaalada London qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Ingiriiska inta kadib madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu jaaliyada kula hadlay Holiday Inn Hotel oo ku yaalo agagaarka Heathrow Airport International ee magaalada London waxa uu sheegay inuu aad ugu mahad celinayo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku soo dhaweysay magaalada London waxa uu sheegay sababta uu yimid dalka Ingiriiska inay tahay waxbarasho mudane madaxweyne waxa sharaf noo ah dhamaan anagoo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool UK inaan caaw halkan kula kulanno anagoo runtii aad ugu faraxsan muddo dheerna ugu diyaar garoobayna soo dhaweyntaada waxa halkaan inaan ka xusay mudan bacdama aan gudoomiyaha jaaliyada waxa halkaan inaan ka xuso mudan in jaaliyada Bristol iyo jaaliyada Birmingham ay munaasabadan caaw halkaan aan u fadhina ay lafdhabar u yihiin soo dhaweynta iyo sharafta soo dhaweynta leh ay u sameeyeen madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo aan ogsoonahay kaalintii weyneed uu ka galay taariikhdeena dhow ee qaranka Soomaaliyeed waqtigii maxaakiimta midoobay ee Soomaaliyeed isbedelka weyn ka sameeyay magaalada madaxda Muqdisho iyo markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka dowladii ku-meel gaarka loo doortay 2009kii xaaladii dalka Soomaaliya ku jiray anigu dadkii qaranka Soomaaliyeed u shaqeynayaan ogaa madaxweynaha hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaaw UK welcome back marar badan aan noo timid markaan iyo mar walbana waa ku soo dhaweynaynaa waxaan kugu soo dhaweynaynaa taariikhdaada dheer waxaan kugu soo dhaweynaynaa dadaalkaada waxaan kugu soo dhaweynaynaa Soomaalinimadaada madaxweynaheena wiil yar waaye wuxuu dareensiiyay wiilasha yararka inay madaxweyne ka noqon karaan maantana arkaysaan dawladda hadda jirta iyo tii horeba inay dhalinyarada dhan ay u taagan yihiin inay wadanka hormariyaan ayna soo xasuusiyaan SYL oo ay u shaqeeyaan ummadii ayna raadiyaan inay gaari karaan sida Sheekh Shariif uu gaar madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed oo noqday inuu noqdo down to this person international hada kula hadlay ilana igu soo daadarto but I'm trying to stop myself thank you very much for all you've done and wadanka ay keento wadanka ay سلامك بعدي مدن الشيخ شريف جالية دان ماشي فرد هورتادا وجالية دادي كسود ويجرت هذه ومدحوينا وحياه بدنا كوجو حسوسته وحي ككوبي هندت كانت جدو جالية ذهب بريستول يا مانشستر يا لندن waxaan aad ugu faraxsanahay farxad aan la soo koobi karin anoo hor fadhiyo madaxweynaheena hore ama hor taagan taas sharaf qaas ah ayay noota anoo ku hadlayo ururka Somali Support Alliance oo gudoomiye ka ahay mudane Sheekh Shariif mar kale waa ku soo dhaweynaynaa alxamdulillah maadaama adigoo nabad aan noo timid ummadan meesha isugu timidna maanta dhamaantood waxay qalbigooda ay ka muujiyeen inay aad ku jecel yihiin wali mudane madaxweyne saddex walxaato taa ku taal markaas waxaa la dardaarmayna xasan sheekh maxamuud وعدينا تعالوا ديق أنت المانسانة سلامك بعد هالك وحين يسقوني مي مدحويني هو الشيخ شريف شيخ أحمد أنا وحالي بمسح أنا واقع يبريسان ساعد ويجي وقالوا لها قرني مريا هذا نوع رواينا ويرو أن رئيس الوزراء كحجين كي هره أن أهنا وزير كي أرمها الدبدة الصومالية دولة الشيخ شريف لفتي سو مدحوينها كاها أن مدن محمد أن حاج إبراهيم إنه كسر دوي مدحوينها سجن كلمتي سوي هذا مدحويني هو الشيخ شريف شيخ أحمد
aad baan kugu soo dhaweynayaa magaalada London ma aha safarkii ugu horreeyay aad ku timid marar badan baad timid halkan caawar sharaf waxay u tahay adigoo shakhsi citizen caadi ah oo madaxweynihii hore ah inaan kugu soo dhaweyno magaalada tan London adbakiina taagdara taageera waligiine Soomaaliya noolada adunkuna farxad weyn ii taacawa inaan idinla joogo London aad iyo aadna waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo soo dhaweynta waxaan rabaa inaan runtii dadaalkii hore iyo midka haddaba aan ka mahad celiyo bani aadam guulaysta ma jiro taageero la'aan bani aadam guulaysta ma jiro ayadoon gacan la siinin marka guul kasta oo aragtiin wuxuu leeyahay dad loo jeeday iyo dad aan loo jeedin marka waa ku mahadsantihiin inta joogta inta aan joogin waa ku mahadsantihiin runtii aad iyo aadna waxaan u qadarinayaa waqtiga badan ee aad bixiseen soo dhaweyntan iyo xafladan iyo isu imaashadan aad iyo aadaan uga mahad celiyaa hadda waqti ana waxaan ahay programka u imiday waa waxbarasho jaamacadda aan socdaa Soomaalidu hadalka aad u fasiraan mar rabo hadalka in la fasiro waxaan rabaa inuu aad u cadaado ka muwaadin Soomaali waajibka qof kasto Soomaaliya saaran ay saaran dadku marka meel tago waxay yiraahdaan tala ma dhiibti tala wixii la ugu yimaado inaan dhiib habeenkii aan ku ballamay meeshina ma dhaafi karo yani marka tala la weydiiyo bis aan waxba sheegi karo laakiin inaan tala iskala soo istaago waxay keeni karto qofna ma sii qiyaasi karo marka haddii qofku uu ku heriyo oo ku yiraa walaalkay tiisa ku falana meesha hadda ana joogay ana xumaysaayana waa wax fiican laftigooda iyo talada ragga waa kamid haddii wax lagu badana qof wax la badaato waxa ay kula tahay qofka inaa u sheegtaa muhiima maxamed cabdi cali daacad Royal TV London